dadka intooda kalena waxa naar geyn doona waa carabka qaybta labaad ee naarta u badatay carabkooda naarta u shaqeeyay xan aflagaado ay dirdir xasad xumaan carab aan istaagaynin inuu wax cuno oo wax daaqad mooye ma bannasan karo wax yar gurigeeda ma joogi karto waa inay hesho dad hadday dad heshana xadiiثu lmajaalis wax kale ma xadiiثu lmajaalis waa un xaaraan dad un la faaqidahayo oo wax laga sheegahayo oo la xamanayo oo lagu daba jiro oo ceebahooda la ururinayo khalaas dadna halkaas ku tagay rasuulku sallallahu alayhi wasallam akharu ma yudkhilu an-nas al-janna taagarana ee dadka maxaa ugu badan oo jannada geeya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam akharu ma yudkhilu an-nas al-janna taqwa Allah wa husn al-khuluq min sallallahu alayhi wasallam dadka waxa ugu badan ee jannada geeyay waa alla ka cabsi iyo akhlaaq wanaag ruuxa akhlaaqdiisa inuu wanaajiyo alla ka cabsigana ku dadaalo waxa ugu badan janno lagu galaa waa labadaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam bal waxa sugan oo xadiis Abu Daawud iyo Diyaaf al-Mukhtar uu ku soo saaray min xadiisi Abi Umama rasuulku sallallahu alayhi wasallam ana za'imun bi baytin fi rabad al-janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan guri jannada duleedkeeda ku yaala ayaan u damaana qaaday buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ruuxii muranka iyo dooda iyo qajajacda iska daaya xataa garba halaado xaqba ha ahaatee ruuxii iska daaya jannada duleedkeeda guri ku yaala waa guri dalxiis ahaano meel yar kore ku yaala ayaan u damaana qaaday buu nabigu sallallahu alayhi wasallam وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا قري جنة إحنا كويا لنا وحا قدما قاضي روحي بنت إسكداية حتى هدو كفتمية حتى بينكم كفتم هدو ربوها الله يسكبر إلا النبي قال صلوات ربي وسلام عليه كفتمي تشري حدنا ولقي بينكم كفتمي تشري وليجي واحد رونه يكون وقف من النبي عليه الصلاة والسلام عليه روحي مركب بنت كفه قاله أو رون كد داله حتى مركب كفتمية يا أبو سلوها الليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم استغنى الجنة إحنا يقول كويا لون ضمان قاضي وببيت في أعلى الجنة جدد وقت جنة ماشى وقص الرئيس يقول كويا لو حن ضمان قاضي لمن حسن خلقه الله أكبر روح أخلاق لي سوى سنتي وحن قدام ما نقاضي قولي كويا لا جنة كركير كويا